waxaan haatan la joognaa xogayaha xiriirka kubadda cagta Puntland ee Soomaaliyeed ee Mustafa Majacse. Mustafa soo dhawow, bal ka waran dareenkaaga ciyaarihii galabta dhacay iyo guud ahaanba inta ciyaarahan socday waxaad ku sugnayd halkan si waxa weeye goobjoog u wataan sida markaas u socdaan. marka ugu horeysa ilaahay ama hal iska leh aan nabadgeliyo siiyay nabadgeliyo markii la haystana waxa la sameyn karaa horumar oo dhan. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan gudoomiyaasha dhalinyarada ciyaaraha oo soo diyaariyay xulalka metelaya goboladooda, sidoo kale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Puntland iyadoo barnaamijkan taabagelisay dowladda Puntland oo guud ahaan tartankan mataqaanaa iyadoo maalgelisay oo inuu yahay tartankii gobolada Puntland. marka xigta tartankan saa la socoto wuxuu furmay maalin taariikhiya oo Puntland ku weyn, maalintii Puntland la aasaasay 1 August. maanta waxaan ciyaarnay kulankii afraad baa dhacay, iyadoo kulankii hore oo groupka B ay wada ciyaareen Gardafo iyo Karkaar ay 2-0 ku badisay kooxda Karkaar. kulankii dambe oo galabtana waxa wada ciyaaray kooxaha Mudug iyo Cayn, kooxda Mudug baa 2-0 ku badisay. Britole insha Allah oo taariikhdu tahay 4 bisha waxa wada ciyaari doona kulanka hore kooxda Highland, gobolka Highland iyo xulka gobolka Nugaal. ciyaarta dambena waxa iska leh gobolka Bari iyo gobolka Sanaag. ciyaarahaasi si nabadgelyo ku socdaan, ciyaaraha ku xigtoona laba u dhici doonaan. tartankan wareegiisa wuxuu ku eegyahay 10 bisha. waxaan ugu dambeyn u mahadcelinayaa ilaahay ama mahad iska leh Sahal TV oo maanta iyo shalay muuqaal wanaagsan u baahisay bulshada Soomaaliyeed. waxaan ka mahadcelinaynaa waqtiga ay geliseen iyo cidda iska leh iyo shaqaalaha ka shaqeynaya dhammaantiin baa inay mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad maanta mataqaanaa isugu hawsheen una gaarsiiseen muuqaalo qurux badan bulshada Soomaaliyeed ee daafaca caalamka wada nool. marka Sahal waad ku mahadsantihiin shaqada tiimka wada iyo mulkiilayaasha iska leh waqtiga iyo juhdiga geliseen in horumarka kubadda cagta ee ka socda Puntland ay gaarsiisaan bulshada Soomaaliyeed. waan mahadsantihiin. xogaye sidii aad rabteen hadda wax loo socdaan maxaa idin baxay waxa weeye intii hadda ay socotay tartankan wuxuu leeyahay shuruuc iyo xeeroosaad lagu maamulayo. tartankaas ciidii shuruucda jebisa waa la ganaaxaya, ganaax baana qabanaya. waxaan filaynaa inuu si wanaagsan u socdo. tartanna sidiisaba waxa qurxiya garsoor wanaagsan markuu haysto. garsoorayaasha tartanka qabanaya wada jiru qabanaya oo garsoorayaasha Soomaaliyeed horyaalka Soomaaliya ka qabanayay iyo garsoorayaasha Puntland baa si wada jiru qabanaya. marka haddii tartan garsoorkii la adkeeyo kubadiisu waxay noqonaysaa mid qurux badan. marka garsoorku waa ifraha kaliya ee tartan quruxdiisa wanaagiisa muujin kara. marka dhammaan garsoorayaasha tartankan haya waan u mahadcelinaynaa iyo cid walba oo qaybka qabashada tartankan. waa mahadsantahay.